The Somali imams and leaders in Minnesota, after an emergency meeting tonight, strongly condemn the heinous acts committed in Kenya at the Westgate Mall. This action goes against the basic teachings of Islam, which are mercy for all of mankind. It's senseless and painful to the community all over the world. We therefore jointly condemn this action and also call on the world community to unite that extremism cannot divide the common humanity that we all share. We also stand by the people and government of Kenya that the pain that you are experiencing is our pain, as Al-Shabaab and similar organizations have done so much harm to the people of Somalia. And we stand in this together, and we shall defeat the extremists. Also, we'd like to let the community know that on Monday, September 23rd, there will be a press conference that the Somali imams and leaders will hold at Abu Bakr Islamic Center in Minneapolis at 2 p.m., where we will further speak and express our condemnation. Finally, we reiterate our commitment as Somali Americans that the national security of the United States is our also important issue to us, and anything that undermines it will be the first to stand against it and protect our nation. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I would also like to add my voice to the condemnation of the violence that happened in Kenya, Westgate Mall. And I would like to reiterate and say that these acts of violence have nothing to do with any religion. The people who are the perpetrators of this violence may share the same religion, but they do not share the same values, the same Islamic values that have. The Islamic scholars have condemned these acts throughout the world, and I would like to add my voice to this. And again, there's a press conference tomorrow here at Abu Bakr Mosque, and you're all invited to attend, inshallah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Halkan hadda ka hor waxaan ku qabanay dilal badan oo Soomaaliya ka dhacay, ardaydii Muqdisho lagu laayay, dhakhaatiirta ah baranaysay, ardaydii Turkiga u socotay, culimo badan oo la laayay oo maaragtay mujtamaca Soomaaliya muhiim ka ahaa. Caawana halkan waxaan u taaganahay faldambiyeedka ka dhacay waddanka Kenya oo aan darisnahay. runtii waddankaas oo aanu ku soo qaxnay oo waddanka iyaga labaad aan ku tilmaami karno. arrinkaasi waxaan cadaynaynaa falkaasi inuu yahay fal aan habooneen. fal kasta qof bini aadam aan lagu dilayana meeshuu doona ha ka yimaado waan cambaaraynaynaa. codka iyagana waxaan ku biirinaynaa culimada Kenya ee ka hadashay arrinkaasi baan aad runtii u tusaynaa mujtamaca inaanu ka xunnahay. halkan aan joogno magaalada Minnesota sidaas oo kale shacabka Soomaaliya oo xun yahay. dhibkaana wuxuu soo socday muddo. halkan aan joognana waxaana keenay xabad ka soo carar oo aan ka soo qaxnay dad ظالمين oo banaystay dhiiga dadka Soomaalida ah. dhibka ugu weyn wuxuu ku dhacay shacabka Soomaaliyeed oo waayay dalkoodii iyo rajadoodii iyo karamkoodii iyo akhlaaqdoodii iyo dhan waayay. runtii arrinkaas aanu jeclaysanaa caaw inaanu ku biirino. waxaanu u cadaynaynaa caalamka in falkaasi dhacaya iyo falalka la mid ahba uusan islaamka ka turjumayn, islaamkana bari uu ka yahay. dhibkaasna cid geysatay insha Allah aakharana lagula xisaabtamaya, adduunkana way arkayaan hadduu Ilaahay yiraahdo. intaas aan ku biirin lahaa. salaamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. waxaan soo gaaray faldambiyeedka weyn ee ka dhacay magaalada Nairobi, gaar ahaan mallka Westgate Mall.
waxaan runtii rabnaa halkaan aan ku muujino annagoo ku hadlayna magaca ummadda Soomaaliyeed ee Minnesota iyo guud ahaan Mareykankaba iyo magacyada masaajidda islaamiga ee dhulkan ku yaala inaan runtii aad uga xunahay waxa meeshaas ka dhacay filmandiyeedka weyn ee lagu laayay dad fara badan oo aan wax dambi gelinin waxaan marka rabnaa marka ugu horeysa inaanu cambaarayno yani dhacdadaas dambiga cid alla cid geysatay inaysan maartay aanu muujino aysan islaamku ku lahayn magaca islaamkana dadka noocaas kala ah aysan runtii matalinin aan lagu gelinin magaca islaamka sidoo kale inaan muujino faldambiyeedka noocan oo kala ah inuu yahay mid fool xun oo ummadda Soomaaliyeed ay tahay yani dhagar qaba qofka ugu horeeyo ku dhibaataysan oo dhibaatada ugu weyn ay ka gaartay ayna ula mid tahay adduunweynaha intiisa kale dhibka maartay noocan oo kala ah dadka uu saameeyeen aan ugu badannahay marka waxaan rabaa halkaan runtii inaan iska ilaawin ugu dambeyntii inaan u tacsiyeeyo waan tacsiye gaarsiiyo ehelada iyo qaraabada dhammaan dadkii meeshaas wax ku yeeloobay waxaan runtii sidoo kale si gaar ah xasuusinayaa waddanka Kenya oo ah waddan maartay ummadda Soomaaliyeed runtii ay degtay kana mid tahay abaal weyn ku leh in maartay uusan dhacdada noocan kala ahay aysan ahayn mid matalaysa ummadda Soomaaliyeed ama wax lagu kale insha Allah intaas rabeen aan ilaahdo waana mahadsantiin alxamdulillaah rabbil caalamiin marka koobaad waxa aniga oo ku hadlaya magaca community Soomaalida imaamiyada Soomaalida Minnesota waxa aan marka koobaad aan cadeynaya inaan ka xunnahay falkii ka dhacay magaalada Nairobi kaasoo ahaa fal argagixisanimo oo islaamku uusan shaqo ku lahayn ummadda Soomaaliyeed iyo Soomaali hogaamiyalka Soomaaliyeed waxay ka xun yihiin arintaas midda labaad waxaanu tacsi u diraynaa dadkii dhibaatadaas wax ku noqday iyo dhammaan dawladda iyo dadka Kenya oo ah dad yani ummadda Soomaaliyeed abaal ku leh midda saddexaad waxaan cadeynaynaa arintaas inay tahay arin islaamku bari u ka yahay oo dadka noocaas u fakaraya ay yihiin dad aan ku soconin manhajka islaamka dad inxiraaf uu ku dhacay dad diinta islaamka ka leexday dad faham khaldan ku socda dhammaan caalamka oo dhanna ku ah khatar ku ah marka intaas ayaan oran lahaa wassalaamu calaykum waraxmatullah